بسم الله magacaygu waa Zahra waxaan dhigtaa xarunta rasmi waxaan ka bartaa Cilaan Saar waxaan imaaday 5 maalin wallahi xarunta waxaan ku soo biiray 2 bil ka hor haddana waxaan jeclaa mar dhow inaan qalin jabiyo ani waxaan bartay Cilaan laakiin xarunta waxaa laga bixiyaa maadooyin kala oo badan waxaa ka mid ah Cilaan Saarka cunno karinta iyo maadada makeup-ka wallahi cilaanka waa hobigeyga waxaan jeclahay in aan naqdo qof inaan bukyar weyn aan furtaa jeclahay wallahi cilaanka marka koow aan bilaabaye waxa ma aqaanin laakiin hadda waxa hami weyn ayaa yeeshtay waxaan jeclaana in heer weyn ka gaaro wallahi aygu aad ay kulli ma sha Allah waa wada fiicanahay qof walba uu dadaalayaa because waxa meesha loo imaado dhan waa waxbarasho hadda ani waxaan jeclahay hadaa qalin jabiyo in aan meel weyn bukyar weyn aan furno annagoo asxaab badan aan wada nahnay oo halkan ka wada baranay ku haminay hadda ani kaligay ani iyo hal gabar kala imaanay hadda asxaab badan ay yeeshtay inta ku yeeshtay isku baranay ya ani waxa ka imaada xaafad Tawfiiq wallahi ani waxaan dhahay inta hadda wax qabsato way qabsataa intaan qabsanina inay shaqo raadsadaan wax bartaan dadaalaan aan kula talin lahaa magacaygu waa Ruqayya Cabdiqaadir Maxamed xamar jajaba ka imid kusoo dhawo barnaamijka hirashada haweenka TV dalsan xaruntan go'aamada kusoo biirtay isbuuc ka hor kusoo biiray haa waxyaabaha aad barato maxaa ka mid ah Cilaan Saarka Cilaan Saarka wuxuu ahaa wax aan aad u jeclaa yaraantayda ilaa iyo waqti badan marka hadda maadaama aan helay fursadan waxaas dhahno ka faa'iideyso oo maanta aan haysato jaaniska hor u sii galno riyadaada oo baro marka riyooyinkaagi maxaa ka muuqdo kala wasiirada alxamdulillah hadda isbuucan inta joogo wax qabadkayga muxuu aad u fiican yahay waa qaas sidii hore hadda isbuucan aad joogto maxaa si kala bedel wax badan iska bedel hadda kalsoonidii lagu sameeyay aada u helano hadda cilaanka maraysa ardayda haa isku dayaa maalin walba yani kareemkan ku marinaa cashirka marka la sawiro kadib adana qof kale loo marinaa kareemka marka ka waran macallimiinta bixiya maadooyinka waa macallimiin wanaagsan runtii gacmo wanaagsan waa ku jirnaa oo wax qabadkooda aad u wanaagsan yahay sababtoo isbuuc kaliya joogay hadana anaa isku habiib ah oo isku kalsooni buuxa helay oo isku day karaa mid qurux badan casharada kamid ah inaan ku wax qabto insha Allah sidaas dabcan bismillaah magacaygu waa Maryam waxaan deganahay degmada Howlwadaaga uga imaada meeshan waxbarashada Cilaan Saarka Maryam kusoo dhawo barnaamijka hirashada TV dalsan waxyaabaha aad barato maxaa ka mid ah waa ku dhawaad waxaan bartaa make-up-ka iyo Cilaan Saarka make-up-ka iyo Cilaan Saarka maxaa ku dooratay wallahi Cilaan Saarka iyo make-up-ka waa iska jeclaa inaan barto hami sarana aan ka gaaro hadda meeqa dhiganaysaa bili bara dhigana hadda marka bili barkaas waxyaabaha aad ka faa'iiday xaruntan maxaa ka mid ah wax badan ka faa'iiday kala bar xoogaa badan ka faa'iiday sida hore maaha hadda marka maxaa samaysaa markii ardayda jiro baratiko Cilaan Saarka baratika ku sameeyaa make-up-tana baratika ku sameeyaa labadooda haddaad isbarbar dhigto Cilaan Saarka iyo make-up-ka yaa islaada ugu badanya barashadiisa Cilaan Saarka ugu dambeyn Cilaan Saarka iyo make-up-ka hadda barataa maxaa ka rajeynaysaa markii aad dhammaysid in aan ku shaqeysto insha Allah qaab shaqo ahaan in adiga ku shaqeysato u soo gasha haa ka waran macallimiinta dhigaagin maadooyinka ما شاء الله براتك في عمل مدن ما شاء الله سيف عن وحلا برتا يا ardayda waa santaa
xamdi cabdirashiid muuse. xamdi kusoo dhawo tv-ga dalsan iyo barnaamijka hegashada haweenka oo faraxsanahay inaan kugula kulanno xaruntan horumarinta qoyska ee rasmi. kusoo dhawo marka hore dalsan, waxaa kamid ahayd ardaydii hore uga qalin jebiyay xaruntan, waxyaabihii aad baratay haddii aad inoo faahfaahiso. cilaansaarka iyo meekabka ka bartay. cilaansaarka iyo meekabka baratay dafcadeed kamid ahayd? dafcadii saddexaad. dafcadii saddexaad aad kamid ahayd, ka waran waxyaabihii aad baratay, maxaad ka faa'iiday? wax badan sidii iidoo kale ku shaqaystay, haddii taana macalimadaa ka noqday. ciidii aad ku shaqaystay? haa. ilmo badanna cilaansaarka aadiyana? dabcan ilmo badan. waa hagaag. hadda marka waxyaabaha aad qabato maxaa kamid ah? hadda meel macada macalimadka xiisada cilaansaarka hadda bixiyaa. haa. waa hagaag. adigoo kamid ahaa dafcadii saddexaad ee xaruntan ka qalin jebiyay, in aad xarun kale hadda wax ka bartid dad maxay kaaga dhigantaa? farxadeen sababta ashal waxaa u baahnaa inaan heerkaas la gaaro oo macalimadani ka noqdo. maantana way ii rumooday hamigaa lahaa. soo maahan? ka waran marka dadka aad wax barto sidee kuu arkaa? walaa dadka maxay dhahaan intay kasoo barato marka hore amba juhdi badanaa soo geliya, juhdigaa maanta gelinaysiinaan insha alla soo geliya kusoo bartay. adinkana maanta kiilay wadiin hore u socdaa waa gaarisiin hamigaa leediin. amba shalay saan oo kale ahaa ma aqoonin, laakiin waan maanta soo bartay. gabdhihii kaala qalin jebiyay dafcadii saddexaad aad wax ku baranayseen, aad hal meel wax ku wada baranayseen, ma ka warqabtaa ayagu ma kuwa sidaadoo kaleeto dadka uga sii faa'iideeyaba xirfadii ay barteen? walaa hadda kuwa bukeer ka shaqeey way jiraan, laakiin weli ma maqlin mid xarun furatay kuma jirtaa umaleynaa oo wax lagu barto macalimadee. laakiin bukeer inay furteen qaar umaleynaa. adiga inaad bukeer furato oo aad ka shaqayso gabdhihii aad xirfadii aad baratay aad uga faa'iideyso ma rajeynaysaa? haa. hamigiga waa inaan bukeer aan ilaa furto ay dadka sii faa'iideystaan. ka waran macalimiinta wax soo bara? mar walba ma hadda iskale macalimadda wax soo bartay rasmi Mira Cali. maanta laanta heerka ma soo gaari lahayn. gabdhaha kale rajeynaya in ay xirfadahan ay bartaan laakiin aan ku dhaqaaqin oo goobihii wax lagu baranayo imaanin keliya niyadda ka jecel oo kale maxaad jeedaa? hore u socda xirfadaa barateen uga faa'iideeyay bulshadiina kale, meel furta gooba idinkayga gaare aad dadka wax uga sii faa'iideyseen. sidaa kale magacaygu waa Rasmi Mira Cali, waxaan ahay maamulaha guud ee xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi. waa ku faraxsanahay maanta booqashada quruxda badan aad nagu soo sameyseen. Rasmi kusoo dhawo tv-ga dalsan barnaamijka hirashada haweenka. waa ku faraxsanahay inaan maanta xaruntaada aan soo booqano oo aad wareysi kula yeelano. ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka waxyaabaha xaruntaada qabato adigoo faahfaahin guud inaga siinaya. waa maasantaan isteexo waa ku dhawahay barnaamijka dalsan. xaruntan waxyaabo fara badan ay qabataa, qaasatan hablaha Soomaaliyeed oo qabataa. xirfadahaas waxaa kamid ah sida cilaansaarka, cunno karinta, make-upka, public speaking-ka ama ay la mid tahay saxaafadda oo kale. aan ugu talagalnay in gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ku bartaan xaruntan. waxyaabahaas aad xarunta dadka ku barto ka waran gabdhaha ku yimaada? wallaahi gabdho fara badan aa jiro xaruntan wax ka bartay, haddana wax ka barta, nana soo booqda maalin walba iyo mar kastaba. xirfadu markii la dhaho dhanka dumarka oo kale